مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحان إذن كسو فريست مانتا إنا عنده عيد مبارك وأن دمان سلام family friends and fans all of you guys وإيش يستيرهم ملاينا تيك توك إسكن نقضي إيو سناب جات حتى بريانا بلابا 2 days ago لكن دي social media actually هرتا روايدي أنا نيجد بجيربا فيديو كان إنه يقول لي هذا مرة بو لكن وحان سمين دونا فيديو فربضن أو أريماس أنا كجا هاد دونا لكن فيديو كان إنه يقول لي هذا دياروني وحال كاس كم وخذ مدحيك by the way وحا روايدي إنا نيجا ورم روايدي وحا ودي وحي تهي هرتا مروة إسكن نقضي أو حاصل نقضي oo marka lamaana noqday oo single ma ahi anymore so waa ina xaajigayga service garay badana waa inaan asaga adeeco waa ina asaga happy ka dhigo inta shacabka happy ka dhigin waa inaan odagayga happy ka dhigo iyo gurigayga iyo reerkayga aan ka shaqeeyo number 2 wax weeye I lost my mom ilaaha u naxariisto waa maalin carafa ah ilaahay jannada ha geeyo aabahayna ilaaha uga daba naxariisto waxaan kula dardaarmayaa qof walba oo waalidkiisa dhintay صلاة عشاء مركاتو كتكدي كو يتبان قل والو آخر انتا كجارتي أنيقا فميل كيغ وحا كدماتي I lost 4 people I lost ويلا هبريرو أهاي إن إلهي ونحريستو I lost هويدي هالسن قدو 2021 وحا لوز قري لبقف هويدي معان يويلكو ولا شيء لشأن اللي بلعان عند الله هويدو أهاي waxaan lose gray waxyaabaha badan ay idinka sheekeynaa wasaasa ka mid ah waxaan kaloo lose gray aabahay long time ago 2005 2003 walaashii lose gray so 4 people ay dhimatay so maxaa akhriyaa 11 qulwale oo hooyadii ah 11 qulwale oo aabahay ah 11 qulwale oo walaashii ah iyo 11 qulwale oo wiilkayga ah waa afar 11 qulwale mid kasta markaan dhameeyeen waxa u duceeyaa qofka ugu talagalay ilaahu walaashi u naxariiso qadiijo qaliif ilaahu aabay qaliif ismaaciil u naxariiso haddana marka ugu dambayso hooyada ilaahu u naxariiso hooyada badana marka u duceynaa emotional aan noqdaa marka si aan marka hore first time emotional u noqon waxa ugu hormariyaa walaashi iyo wiilkayga aabay ku xijiyaa hooyan ugu dambaysiyaa marka emotional aan noqdo markaas saliga waa isaga kacaa وريلاكس جرايا استغفار تنبضياسي قلبي جيل هاي وتجي هذا كور أنا مدة أوينا بيل أحمر كي هو يدي دمطي وشيء كفاني عيال لكن وحق سابسن تاجيري قبل كلو واحد جرت ولا شيء هذا أسكو جعلنا هاي وإلى درت أقول ألوني مقالة أنا أسلت جنها أم بلا صالدها قبل أس هذا أقوم هذا علنا يا marka hooyada loose garay ayaa oyn jiray every day so ayada qadka iigu jirta qadka igama bixi jiray habeen kasta way aragtay I spend like 5 hours 6 hours 7 hours just oohinle oo hooyada aan ka fikiraa oynayo maalinta maxay ugu tiri nimco badana waa oysaay dhahday qisan kaaga sheekeyno marka I think horta laba mid kala garan lahay ambulance in ani iga nixinaysay oo aniga iga cabsiinaysay oo ay rabtay ina emotionalka faraha badan joojiyo I still avoid قفل بهويدة يقاني by the way وحا avoid قرية قفل بهويدة يقاني just إنا صوحة سوستديدة so I avoid them قفل بهو بني آدنا وهويدة يقاني avoid قرية تليفون كما قبطو لما هدلو وح اللالي وحا إسلاه هويدة يكسو حسوسينا يان one avoid قرية so I need inta emotional ka iga baay inaan maqla sheekada gabadha ku noqonayna gabadha waxay ugu tiri saa uu ooynay every day uu ooynay maalinta waxay ugu tiri nimcay dhageyso sheekan ku haya ma ogtahay qofka haduu qof dhinto anaan fulaya by the way fulaya ani geesmi waxay dhaaday ma ogtahay qof haduu dhinto oo qofka nool uu qofkaas israaciyo oo oohinta badiyo badanaa because qof adi waa iska dareemi kartaa qof markuu ka dhinto emotional tahay oo hinta ay badato ma ogtahay igu dhahday inuu qofkaas ka daba dhimanayo badanaa labadaas qof kale iska daba tagaan qofkaas qof kale wax badan kama dambeeyo badanaa qofka ay u oydo waa raacda ay igu tiri uu isku fiirsay tiri nin naagtiisa markay dhimato xaaskiisa hadduu ninka naagta ka samro naag kala guursado maybe inuu cabaar noolaado laakiin ragga badanaa widowga ku daaho xaasaskooda badanaa kama dambeeyaan wax badan naagaha nimanka daba dhintaa naag ninka daba dhimata ma arkin bami ilaahay haddaan ka baqo weli ma arkin naag ninka daba dhimata laakiin niman badan oo waxaan arkay aabaheedaaba ka mid ahaaba gabadhaas aabaheed iyo hooyadeed wax yar kala dambeeyay marka waxay ugu tiri waday dhahday aabahay hooyaday israaciimeed mis hooyaday aabay israacisay way iska daba dhinteen
gabadhaas ay iga sheekaysa marka waxay ugu tiri haddaa oohinta badan joojin weysid mugo waa socotaa waa ka tawiifinaysaa bay fulayo intaas la dhahay mar dambe oohin 1 hour 3 hour waa iska daay hadday u badato 1 minute ooya hadda shalay kaba soo qadaraado kaleeto gabadheeda la sheekaysanay because iiday ahayd waa iskala sheekaysanay waxaan dhahay ma soomaysaa beri ha anoo soomaa waa iska sheekaysanan speaker ku jirtay anoo soo sheekaysanayna sheeko waxa ii ka keentay ma ogtahay ayay inaan ku riyoodo maxaan ku dhaar mataqaana leena ii soo galaan kugu soo celi saaxiibay gabawsi sayso wacay hooyo maxaan kugu dhacay sheeko macaan noo socotay saaxiibay waxaan ku yiri bye because we are best friends gabadhii hooyadeedna waa nahay saaxiibana waa nahay soo marka waa u gambiyo qoftino ilaa ii shalay waxay dhahdaa maxaa taleefkayga qabus waxaan ku dhahay promise me aan ku dhahay riyadaas inaad iiga sheekeynaynin inaan hooyo igu soo hadal qaadaynin oo ku soo wacay waxay tir mar dambe kuguma soo qaaday marka haddan saas waxaan sheekada ku keenay gabadhaas ay iiga naxisay waxaan bilaabay inaan avoid garay wax walba ku soo xasuusan karo waxyaabo aan ku soo xasuusanayo maxaa kamid ah marka waxa kamid ah hadda kaba soo qaad walaalahay oo kale markaan waco cabaar markii la sheekaysto hooya la soo hadal qaaday mugta waa sheekadii waa u gooy markii waa u gooy dhinaca taleefanka dhan hey bye bye waa idin dhamaatay ilaa intaa ka nasanay because wadnaha iyo qalbiga alla sheekada adduunka u haya waaga singalka ah waxa ahaan jiray ninaa shukaansana nink markaa shukaansado haddaan ninkaas dee dadka moogta calaf iskuma wada yeeshaan maybe inaa qofkan aydan calaf ba isku lahayn oo shukaansi ay isugu imaateen haddaa qofkaan shukaansado calaf isku yeelan weyno aan kala harno qofka soo ma aha ilaah amarkiis inaa qofka kaliya jirtid weligay saas ma samaynani maxaan jiraa mataqaanaa saaxiibtiis qofkan ku bartay qofkii maalin salaamay xataa abaarmatiyada uu degan yahay aan waxaan strain orderka goosanaa qofba dabeecadu leeyahay aniga I am very emotional person oohintan waxaaba ii tahayba walaalay oohinta waxaa u malaynayaa jimlaan kusoo qaatay oohinta jimla ii tahay by the way barnaamijkan emotional ma aha waa ciid waa farxad waa ciide cashiiriya nolol ku ciida ciidul caafiya ciid mubaarak ku ciida waa ciidooya marka ma rabo inaan idinku daaho waxaan idinka sheekeynaya sheekooyinkan oo dhan sababtu waxay tahay just inaan idinka idinla wadaago emotional saan dareemayo iyo hooyadii hadda waxa kasoo wareegtay markay dhimatay October ay dhimatay wiilka habartu uu ahayna isla October iyo September laba dhexdooda ay dhintay marka fiiri September iyo October dhaawac badan ay soo gaaray and you know it scares me macnaha in losing someone and hooyadii waagay nooleed waxaan xasuustaa haddaan hooyadii la hadlo camal ama qof i soo waco waa cabsan jiray taleefanka inaan qabto I used to avoid calls oo Africa ah markay hooyadii jiratay qof walban wuu i fahmay because hadda ka hor sheeka idinka sheekeyna kale oo emotional marka taleefanka sababta uu avoid gareynayo waxay tahay just naxdintaas anahay is so hard for me I don't know adiga camal ina saas tahay I don't know in dad kale yihiin like ani saas I'm very emotional person hadda ka hor walaashii xanuunsanaan jirtay wadna xanuun ay qabi jirtay since I was born since I remember maalintaan dhasho waa ku caqlistay walaashii jirana ku caqlistay wixii jirneed ilaa ay ka dhimanaysay imagine marka ani dhashay ayadoo jirana dhashay walaashii because baabuura wuxuu ku dilay ayadoo iskuul ka soo baxday ceer gaabta wuxuuna dilay gaarigaas inta dhalan ka hor marka walaashii marka inta dhalan ka hor baabuur dilay hooyadii xataa uurkayga ma lahayn walaalay kuwa iga waaweyn uurkooda leed marka walaashii gaariga jug siinay qisadaas qiso gaar waaye gaar idinka sheekeyna mar dhana video niga soo diyaarin doona oo ku saabsan walaashii qaabka wax u gaareen iyo wadna xanuunkay qabtay qaabka uu ahaa iyo sida ay sacrifice u sameysay qiso waxaan niga duubi doonaa video dhan oo ku saabsan walaashii waxay very 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 smart person nolosheedii for my life inta noolaa xataa mareykan marka imaaday weligay walaashii qofka caqli badan markan I don't want to feel emotional. Eid Mubarak guys. MashaAllah tabarakallah. walaashidaasna way dhimatay. I lost my sister Khadija li jiray Khadijo Khaliif Ismail li jiray. She was very beautiful person. Tima dhaadheerna way lahayd. oo ilaa iyo ku joogo jilbaha lugaha hoostooda MashaAllah qurux leeyahay way dhimatay. Eid Mubarak asxaabay waa in salaamaya
that's why aan ruwaayadaha usoo duubi waayay sababta sheekadan dheer oo emotionalka idinka sheekeynayay sababta ruwaayadaha aan uga gaabiyey because I lost a lot of people emotionally igu noqotay damage so I recover it took me like xataa umaleynaya 8 bilood 9 bilood inaan kasoo kabsado ilaa hadda saa ujeedina kama soo kabsanin lostiga ah hooyadii lose gareeyey it's very important hooyo la-aanta waxay dhib ku tahay xataa salaanta hooyada xataa hooyadii markay salaanay seetaa fiicantaa wax ma cuntaa Mareykanaan joogaa Soomaaliya joogtaa still waxay weydiinaysaa inaan wax cunayo in kale marka hooyo la-aanteed abaar waaye ilaahay jannada ha geeyo waa maalin carifaa waxaan ilaahay ka baryayaa qof walba oo fiirsanaya oo hooyadiis lose gareeyo ilaahay inuu qalbiga ku qaboojiyo ilaahay inuu maskaxda ku qaboojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu samir iyo iimaan hooyada kaasiyo waaye hooyo la-aan abaar waaye hooyo la-aan dhib waaye marka asxaabay sababtaasaan aan uga maqnaa ruwaayadaha waxa kaloo jiro ruwaayadaha industrigeedii waxa idinka hayaa sheekooyin fara badan history time aan samayn doonaa tana ugu horeysa ciid mubaarak waaye insha Allah maalin dhaaf ama laba maalin dhaaf inaan idinku soo duubo sheekooyin ku saabsan sababta aan u joojiyay ruwaayadaha kan xataa wuxuu noqon doonaa sababta aan ruwaayadaha u joojiyay part 1 insha Allah ilaa iyo 20 part aan ka sameynaa ruwaayadaha sababta u joojiyay waxyaabo badan iska jiraan haddii aan hint idin siiyo badana ani qof talanti ahay oo bulshada talanti ahaan ku soo galay mar haday noqoto comedy-ga xaqiisa oo ilaahay uu siiyay hibo oo maaragtay dad kale ka qosolsiin karto ama iyadoo xataa wax emotional ka sheekeynayso inay dad kale ku qoslaan macnaha waxa u dhashay waa ilaa yaraanteedii dad badan oo waxa jira marka aniga talantigayga ana happy ku noqonin macnaha oo markana qofkan hadduu adiga ku fiirsanayo badan ruwaayad lama sameyn kartid dad badan oo waxa jira xataa isku industry aanan ka shaqeynin oo ama fanaaniin ha noqdaan ama industry cameristaha ka noqdaan ama editor ka noqdaan ama kabalyeeri shaaha keena markii ruwaayadaha la dhigay ha noqdaan dad badan oo waxa jira iska ama qof inuu soo baxan rabo ha noqdaan dad badan waxa jira aniga talentiga ilaahay isiiyay u arkay inay tahay ayaga tareed ku tahay markii qof walba laba ruwaayad xataa heer waxa la gaaray la idhaho xogaa idinta taabana heer waxa la gaaray la idhaho oo wallahi beenna sheegin heer waxa la gaaray la idhaho commentiyada oo shacabka ii soo qori jireen sida adinkoo kale marka ay daawatiin heer la idhaho naciimo ayada isku qorta la idhaho oo ruwaayad laga soo sameeyo oo ruwaayad laga soo jilo la idhaho naciimo joker commentiyada ayada isku qorta wax jecel male dadka dhan way necab yihiin shacabka ma rabaan laakiin ayada waxay leedahay kun YouTube oo maaragtay waxa isku qortaa comment la idhaho heer waxa la gaaray dad lacag la siiyo anigoo la qabo oo marwo ah hadda koor sheekadaasna sheeko gaar waaye oo ayadana case kaleeto war sheekooyin fara badan ay idin haya hal sana oo wax badan ay idin sheekeen doona insha Allah taala saxaabi qeyr badan ay idin rajeyna ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak adiga iyo familkaagaba ilaahay waxaan ka bariyay inta murugada hayso idaawanayso inuu murugada ilaahay ka biyo inta xanuunsan oo idaawanayso caafimaad degdeg inuu ilaahay siiyo inta anigoo kaleeta oo last year-kii la soo dhaafay dad ay jeceshahay oo familkeeda kamid loos garay inuu qalbigeeda u qaboojiyo inta dhimatay inuu ilaahay u naxariisto inta noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban iyo irsaaqad waasac inuu ilaahay siiyo inta bila awlaada inuu ilaahay awlaad siiyo inta haysata inuu ilaahay u xafido qof walba meesha uu ka taamayo ilaahay ha ka tiiriyo insha Allah tacaala ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ma sha Allah